qayladan dayaantiyo duulaanka yaa wada yaa dumiyey daarahan miidaamaha dayowga ah isa soo dahyaa yidhi ninkan ismiidaaminaya ee naftii nacay ee badda isku halligaya ee in jidhkiisii la qasho oo maxaan idhaahdaaye nolosha lagu kala iibsado u badheerhaya ee iimaan la'aantu iyo doqonnimadu iyo nacasnimadu iyo dadnimada xumadu heerkaa ka gaadhay yaa u sababa miidaamaha dayowga ah isa soo dahyaa yidhi deldelaadda yaa faray yaa dooxay maatadan horta maydkan yaa dilay gartan wada dallaganta ah dawbixiyihii mee miidaame dhagama leh hadduu malag dhawaaqayo miidaame waa waxa aynuu naqaano tahriibta yaa tahriiba qofka bila'aadankaa laba waxbaa qabta qof iimaan baa qabta qofna damiir baa qabta qofka muslimka ah waxa qabta iimaan qofka kalena damiir baa qabta labadaasaa xadhig u noqda oo ka celiya waxa xun iyo jidka qalloocan iyo waxyaabaha halista waa naftiisa hadduu iimaan qabta waayo damiir qabtana waayo wuxuu noqonayaa miidaame dabeetana kaa naftiisa halligay buu noqonayaa naftiisa hadduu halligana ehlu naar buu noqonayaa wuxuu noqonayaa qof ifkii seegay aakhirana seegay ifkii wuu seegay oo waa kaa ka tago khasaaru kaga tegay aakhirana wuu seegay oo waa kaa naftiisii halligay oo waa ehlu naar islaam baa noo warantay 27 jir bay ahayd way soo tahriibtay Soomaalida qayb kamid ay deganayd waxay tiri 3 dukaan oo dahab baan lahaa waxay tiri maalintii 4500 ilaa 5000 dollar bay soo gali jirtay 4-5 guri baan lahayn karin jiray gas station baan lahaa waxay tiri nimcan ku jiray wixii oo dhan waan xaraashay badii baan soo galay marka iyadu way soo badbaaday maxaa lagu siiyay baan ku yiri waxay tiri gabadhaydii 4500 maalintii sameeynayay 130 euro ayaa la bisha dhan ku noolow waxaan u tagnay dad faraha isku hadlaya oo dhibaataysan qof naftiisa halligayo oo hadhay la doonaya qof naftiisa halis gelinayo holoc ku turaya qof naftiisa haan raawa iyo horor ku suraya qof naftiisa cadow haligiyo hadka u dhigaya qofan waana deeqdiyo lahayn hadalu qiimeeyo hambalyiyo baroor diiq malaha waana la hubay waladaw fiirsada qof iimaan lihi ma tahriibo oo waayo ma wuxuu yiraahdaa shaqan waado waan tahriibaya ma wuxuu yiraahdaa cuntaan waado waan tahriibaya qofka iimaanka lihi waxa uu aqoonsan yahay uurka hooyadii isagoo ku jira in wax wal oo uu qabanayo intuu ifka joogay waxa ku dhacayaba loo qoray maalinta uu qadayo ee aanu waxba ku cunayni way qoran tahay maalinta uu shaqo waayaya way qoran tahay maalinta uu bukoonaya way qoran tahay maalinta wax yar ku dhacaya way qoran tahay maalintu banaanayo iyo maalintu macnaa dib ku dhacaysa intuba way qoran tahay intaasaa qancinaysa taasuu ku kalsoon yahay oo uu og yahay inay jirto oo aanu dhinacna ka dhaafaynin marka iimaan laawe ayuunbaa tahriiba markaan wareysanayna la noo warramay waxa ugu darayd qolo noo warrantay dooni gebigeeda waa la isku cunay doonina nin iyo xaaskiisii baa saarnaa markaa way sag fadhiyeen ninkii xaasku nin kalena dhinaca kale ka fadhiyay wiig cunto may cunin waxba may cabin iyagoo gaajaysan ayaa ninkii inanta qabay maana ninkii kale ayaa xaaskiisii oo dhimatay xaaskiisii way dhimatay laakiin isagu wuu hurdaa ayaa dhinacaas u qabsaday wuxuu ku biloobay inuu cuno gaajo haysay ninka xaaskiisii buu cunay intaasoo dhan buu dhameeyay ilaa bawjadu ka cunay ninkii inanta qabay ayaa soo toosay markuu soo toosay wuxuu arkay ninkii xaaskiisii cunaya muu oran wax xaaskaagii isagana dhinacii kale u qabsaday xaaskiisii buu isaguna cunay ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu nabadgeliyay waxay soo gaadheen Maalta markay Maalta soo gaareen ee kiniin la siiyay la rusheeyay cunto la siiyay ayuu ninkii xasuustay tuu cunay xaaskiisii ahayd uu waashay dhakhtarka dadka waa buu ninkaasi ku jiray يعني waxay ka warrameen waxa laga sheekeyn kareen intuba waxay sheegeen gurigooda inay laxoox iyo beer ku quracanayeen qadadana hilib la siinayay cashadana ay meelaha inta reerku bucket money siiyo hoteelada magaalooyinka ay degan yihiin ay ka soo casheynayeen
waxse hoosu day inaga mudan haybta sababay waa hogaamintoodii kuwaa hogga badayay waa hoyooyinkoodii kuwaa hiraya qalay waa aabbayaashii hagraday inay hanuunshani waa haynta soo marisay hee hilinkayadeni waa hankaa xalaal diiday ee bogga hiishaday waa dhiigga heeshiga noqday lagu hamumay waa dunuubta lagu hawlayee lagu haliilay waa xaqaa hareer laga maree hoosna loo dayini waa halaaga lagu sii socday laysku horayay haddii guula lagu sii hirtiyo hodan la doonayo mahuraanka nolosheenna waa inaan habaynay mahuraanka nolosheenna waa inaan habaynay mahuraanka nolosheenna waa inaan habaynaa ka baro buugga jidka qoyska toosinta waalidka barbaarinta carruurta tiirarka farxadda tiirarka khilaafka tiirarka xalka iyo waxyaalo kaloo badan haddaba buugga jidka qoyska gurigaaga ha yaallo wixii oori wareertiiyo odayaashii asqoobay markay buuggan arkaan asraarkii dhex yeeliyo umalkii kala weeshay haddii eebba idmo islaantuu ka bogsiinoo odayguu ka bogsiinoo ubadkuu ka bogsiine aqalkaaga ha yaallo buugga jidka qoyska haddaba wixii faahfaahin dheeraada kala xiriir taleefanada shaashada kaga muuqda